Ma rumaysan kartaa in qof aad 6 bilood jeclayd habeen kasta la hadli jirtay qorshaha arooskiisana aad gacanta ku haysay inuu yahay qof aan jirin? Maanta oo aan joogno February 2026 waxaan idiin hayaa sheeko naxdin leh oo ka dhacday dalka Philippines taas oo cashar lama iloobaan ah u noqotay malaayiin dhalinyaro ah oo internetka jacayl ka raadiya. Tani ma ahan sheeko khayaali ah, waa dhacdo run ah oo boolisku xaqiijiyeen. Lisa waa gabadh 24 jir ah oo qurux badan. Maalin ayay TikTok ku aragtay fariin uga timid nin magaciisa ku sheegay Marco. Marco wuxuu ahaa Talyaani, indhihiisu buluug yihiin, codkiisuna uu yahay mid aad u dhow. Maalin kasta wuxuu u soo diri jiray muuqaallo uu iska duubay isagoo jooga badda Fenice ama isagoo gaari raaxo leh wata. Lisa waxay bilowday inay dareento inuu yahay amiirkii riyadeeda. Marco marna ma dhihi jirin lacag ii soo dir, taa beddelkeeda wuxuu u ballan qaaday inuu soo guursanayo, guri weyna ka iibinayo. Qoyska Lisa oo dhan waxay u diyaar garoobeen arooskii qarniga. Maalintii ballantu waxay ahayd maanta oo kale. Lisa waxay tagtay garoonka diyaaradaha iyadoo xiran dhar aad u qurux badan. Waxay sugaysay tikidhkii diyaaradda ee uu Marco u soo diri lahaa. Laakiin hal ilbidiriqsi gudaheed, akoonkii Marco waa la tirtiray. Taleefankii waa laga damiyey. Booliska takhasuska u leh cybercrime-ka ayaa baaritaan sameeyey. Naxdintu waxay timid markii la ogaaday in muuqaaladii Marco ee uu soo diri jiray ay ahaayeen deepfakes. Waxaa la adeegsaday tiknoolajiyada sare oo muuqaal kasta oo aad rabto kuu samaynaysa adigoon qofkaas arag. Marco ma uusan lahayn jid iyo dhiig, wuxuu ahaa keliya code iyo kombuyuutar lagu farsameeyey. Lisa ma weyn keliya sideed eber oo dollar oo ay u dirtay shirkad uu sheegay inuu guriga u iibinayo, laakiin waxay weyday caafimaadkeedii maskaxda. Saaxiibayaal, 2026 tiknoolajiyadu waxay gaartay heer ay ku jili karto jacayl, ooyaan iyo qosob. Ha aaminin qof kasta oo aad shaashad ka aragto.